sheekada Layla iyo Qays. Nin la oran jiray Majnuun ama ninkii waalaa ama sacaadiga ahaa Qays ayaa Layla kula kulmay si kadis ah meel ay dumar xaflad ku lahaayeen. Dabadeed wuxuu bilaabay inuu geelisii gowraco munaasabadda haweenka awgeed. haweenkan waxaa ku jirtay Layla. Layla waxay jacayl u qaaday Qays, isna midkii mid lamid ayuu qaaday. balse nasiib darro Layla aabeed hore ayuu ninka loo siiyey oo uu ballan qaaday inuu inantiisa siinayo Qays. arrintaasi waa u cuntay weeday, waxa uuna ku adkaystay in Layla la siiyo, halka Laylana aabaheedu ku adkaystay in inantiisa uu nin kale ugu ballan qaaday. Qays wuxuu noqday nin jacayl dardaray laakiin inantii uu qaaday uu ku hungoobay. Qays uu jacaylka Layla uu ku dheeraa ayaa ka samri waayey. Dabadeed wuxuu bilaabay inuu dugaagga u heshado oo uu durjoogta u tago. Qays aabihi ayaa isku dayay inuu iloosiiyo inankiisa jacaylkan haleelay, balse Qays xanuunkiisii waa uu ka sii daray oo waxa uu noqday nin waalan oo xiskiisii ayaa raacay Layla. Qays wuxuu u tiriyey Layla gabayo tirabeel ah oo uu mar ku ammaanayo, marna ku calaacalayo, halka marna uu ku muujinayo marxaladda cusub ee la soo daristay. gabayada Qays uu u tiriyey Layla waxay qayb ka noqdeen suugaanta, iyagoo u isticmaali jiray siyaabo kala duwan. waxaa la sheegaa mararka qaar inay u isticmaali jireen hees hawladyo. ila marka uu Qays ku sugnaa xaaladdaas, Layla waxa ay joogtay gurigooda oo lagu ilaalinayay, iyadoo gabayada uu tirinaya Qays ay ka dhigeen Layla mawduuca qura oo lagu sheekaysto iyo xanta dadka. Layla aabeed wuxuu wacad ku maray inuu Qays ka ilaaliyo Layla qiimaha ay doonto ha ugu kacdo. waxaa la sheegaa in nin la yidhaah Ibnu Salaam uu weydiistay Layla aabeed inuu siiyo, laakiin Layla aabeed wuxuu ninkaa u sheegay inuu inantiisa weli ay yar tahay oo uu sugo ilaa dhowr sano si ay ugu soo korto. Qays wuxuu galay nolol adag oo silic ah. sheekadii Qays waxay gaadhay nin la odhan jiray Nazaamis oo ahaa nin deeqsi ah oo sida la sheegay boqor ka ahaa dhulkii Faaris oo hadda loo yaqaan Iiraan. ninkaasoo isku dayay inuu Qays la taliyo, laakiin markii uu kala qustay waana iyo talo ayaa la sheegaa in boqorka ay ka gaadhay inuu weerar ku qaado Layla reerkii ay ka dhalatay, isagoo ka doonaya reerkaas in Layla iyo Qays la isa siiyo, haddii kale dhiig daadan doono. inkastoo dagaalkii dhacay oo la jebiyey Layla qabiilkoodii, haddana aabeed wuxuu ku adkaystay in aanu marnaba Layla siin doonin Qays, isagoo ku dooday in Qays dhulka dhigay oo burburiyey sharaftii Layla. boqorkii wuxuu ogaaday in aan ku guulaysanayn inuu Layla aabaheed ku qanciyo inuu isa siiyo lamaanahan isku dhibaataysan. boqorkii faraha ayuuna ka qaaday arrintii Layla iyo Qays. ninkii Layla loogu ballan qaaday ayaa doonay inuu ka faa'iidaysto jaaniska, isagoo u yimid Layla aabaheed mar labaad, balse markan si dhibeer ayaaba Layla loo siiyey. wuxuuna Layla u kaxaystay gurigiisii. Qays markii uu maqlay in Layla nin la siiyey ayuu ka sii daray, wuxuuna uu hel cusub ku sii yeeshay kayntii uu markii horeba dugaagga la joogay. Qays aabihii waxa uu la dhintay murugadii iyo warxumadii uu ka qaaday noloshii uu la darisay inankiisu, isagoo Qays ahaa inanka keliya ee uu lahaa, wuuna u jeclaa si aad ah. Qays markii uu maqlay in aabihii hoos maray ayuu xaalkiisii ka sii xumaaday intii hore. inkastoo Layla la guursaday, haddana ma aanay ilaawin jacaylkii Qays, waxaana ku sii siyaaday jacaylkii ay Qays u haysay. Layla waxay warqad u qortay Qays iyadoo uga tacsiyadeynaysa geerida ku timid aabihii, waxaana u sheegtay in ninkeedu og yahay in ay Qays jeceshahay oo aan weligeed qalbigeeda ka baxayn. waxa loola jacay dadku ay la tamaan hadda la isla lulay midun baa muddo kadib waxaa dhimatay Qays hooyadii. Laylana waxay fariin u soo dirtay Qays iyadoo uu soo dirtay nin waayeel ah una sheegay in Layla ay doonayso in ay kulmaan. Qays waa uu raacay ninkii, waxaana mar labaad kulmay Layla iyo Qays. se Layla ninkii la siiyey wuxuu ogaa inaanu marnaba qalbiga Layla ka saari karin Qays, balse Layla ninkii la siiyey waa uu xanuustay, sidoo kalena uu dhintay. sida dadka dhaqanka u ahayd, inanta carmalka ah ee laga dhintay 2 sano ayay ahayd inay ku jirto guriga oo aanay muddada rag la kulmin. Layla iyadoo ma dulqaadan karto muddadaas dheer oo aanay Qays is arkaynin, waanay xanuunsatay, sidoo kalena waanay dhimatay. warxumi dugsi ma fadhiistee. Qays markii uu maqlay in Layla ay dhimatay oo dhulka hoos martay ayuu aad uga xumaaday, wuxuuna booqday xabaasheedii. halkaasna waxaa ku soo afjarmay noloshii Qays, waxauna ka daba tegay Layla, isna waa uu dhintay.
sida layli iyo qays yaanu laasimayo hurda kamalado qalbigaadu luuda